iyadana iskuma tashanin cadowna wuu u tashaday ilaahay baa maxay ahayd qulubtooda isku keeni waayey meeshii umay maanta taagan yihiin hadday soo ruraadeen wax yar bay soo ruraadeen war may maqashaan waa loo tashaday nin maqlaysaan nin kastaa u tashaday quwadihii waaweynaa oo adduunka oo sidii maraykankii iyo ingiriiska iyo reer yurub baa u tashaday may maqlaysaan darsi yar baan idiin sheegaya qulubtiinna aad gelisaan aan rabaa carab baa u tashatay oo iimaanka alla ka qaado isku islaam aan ahayn warso mid labaad maaha afrikaankii jiiraanka oo annaga aan ka kownahay etoobiya iyo jibuuti iyagana way u tashteen war may maqasheen keliya waxaa loo baahan yahay in xikmad iyo caqli iyo siyaasad hufan oo calool adag oo nadiif oo ummaddaasayto isku dayda waxay u qaban karto inay u qabato ma garateen anagii meeshan ku nooleenna in noloshaannada aan sugno oo xuquuqdaannada aan helno oo dhibaatooyin fara badan oo haddana haysata laga baxa soo mii maqlin waa gobolka keliya oonan laami lahayn mii maqasheen waqooyi bari waxaanan ka ahayn halaha gaaris ilaa madoogaasha ka laami kale ma jirto oo isku xidhaysa magaalooyinka waaweyn may maqlaysaan xaqiraad bay ahayd markaad inta ka tagta hadda nairobi aan xalay ka imaaday 15 meel oo waxaan soo maray wadabaha la xiray oo isbaaro ilaa magaalada dhexdeeda isbaaro ay tahay dadaan ku naxaynin baa awoodii gacanta ku dhigay kuwii adiga aad dooratayna ilaahay baa qalbigooda si kale ka dhigay ilaahay baa maskaxdooda si kale ka dhigay kuma ayn doodin kuma ayn dagaalamin cadkaadii ma ayn soo goyn war may maqashaan cadow gudaha iyo cadow dibaddaba in la iska tiiriyaa loo baahan idinkana laydan midahay noloshiinni haddaad tihiin qoomka soomaali la yidhaahdo meel kasta ku nool kala qaran baan nahay oo qaranka kenyaan ku noolnay annaga oo ma diidanay aniga waad i garteen soo maa qaran kaloo soomaaliya lahana wuu jiraa qaran etoobiya lahana wuu jiraa qaran jibuuti lahana wuu jiraa intaba waxaan rabnaa inay sharaf ku noolaadaan aniga melihi aan isku keenna shantee waxaan leeyahay meel alla meeshay ku nool yihiin xuquuqda ugu sarraysa helaan madaxweynaha ka noqdaan prime minister ka noqdaan wax la mid ummoogii iyo waxay ka hooseen uusan jirin hadalkaan idiin sheegaya waa hadal qodo dheer dagaalkan markaan bilaabay 30 baa jiray waxay ku kordhisay haddana 60 baan kor u dhaafay may maqashaan waxaan idigu sheegayaa inaad meesha annaga markii tii rabbe nagu toostaan kaga tagna aad ka qaadaan oo dhallinyaro aad noqotaan meel cabbaarna leh halganna leh qadiyadna leh ummaddooda iyo qoonkoodana 100 sano hadda ka damba 200 sano hadda ka damba nolosha ay ku nool yihiin hadda u sii gundhiga ayaan rabtaa inaan noqdaan may maqasheen 1992 markii aniga la dooranayay dad badan oo inta joogaa jira oo beriga xasuusta soo ma jiraan maalinkii aniga doorashadayda dhacaysa 29 qaxooti iyo degaan iskugu jirto ayaa intii la dilay yaa meydkooda la gubay may maqasheen waa kaan aniga intaan keenay jaraa'id iyo safiirray intaan keenay iyo aan qabriyaha ka soo qofnay meydadkoodii may maqasheen muddo dheer baa lagu soo mooday meesha iyada ma jirto wax maaragtay luga leh oo gacmo leh oo caqli leh oo af leh war may maqlaysaan aamusa baarlamaanka asaytow wax tagaayo oo luga leh oo af leh oo gacan leh oo maskax leh oo doodaysa oo la yidhaahda ree hebel ma jirto war may maqlaysaan wax la yidhaahdo matalan reer turcadda ma jiro reer afgaab ma jiro waafata ma jiro muqaawil ma jiro garre ma jiro dagoodi ma jiro majeerteen ma jiro soomaali intay tahay wax la yidhaahdo oo tegi ma jirta meesha shakhsigoobaad geynaysaa wiil iyo gabar midkooda wixii ilaahay uu ku beeray umur wax kuu soo qaban karaa laakiin magac qabiil waxba kuuma qaban kara war may maqashaan soomaalina ilaahay baan kaar ku rido ree hebel baan nahay kursiga hebel baan rabaa ree hebel haddaan halada doorto war wax ree hebel la dhaho or lugal qaba miyaa jira oo cadow kaa celin miyaa jira shakhsi baa kaa celin soo maaha ree hebel kasta nacasna way qabtaa nin ragna way qabtaa soo maaha haddii mid nacas meesha u taga ka warrama waa la gu'i soo maaha war soo lama go'ayo muxuu kuu galay ree hebelkii muxuu kuu galay markaa muxuu kuu galay waxaan idan leeyahay ilaahay baa iga sarreeya aniga
meesha magacaad u raadsanteen oo ma soo istaagin maalaad u raadsanteen oo ma soo istaagin may maqashaan laakiin ummaddii markaan arkay godka ay ku jirto tii Kenya godka ay ku jirto tii maxay ahayd Soomaaliya oo gundhiga ahayd godka ay ku jirto kuwii kale oo Itoobiya iyo Djibouti godka ay ku jiraan yaa waxaan idhi cala alaqal bal halgan yar oo adiga meelaha ul yar Allah horordo ha ka soo baxda meesha isbedel inay ka imaato Allah ka warmay maqlaysaa su'aadii u maqashaan waxaan idiin sheegi al-shabaabta la sheegayo ma aha urur islaameed ma aha waa murtasaqiin ay reer galbeed hagaajiyeen mukhaabaraadkooda hagaajiyeen oo ay ku adeeganayaan oo ummaddan in lagu baabiya loogu talagalay siyaasiyiinta maxay ahayd wax kasta gadanayo oo dhulkii gadanayo oo meel kasta dalaalka waa dadka loogu talagalay adigana ay ku baabiyaan hadduu doono bal fiiri wax baan kuu sheegi hadda ka hor baa waxaan idhi hebel khaladkaasuu sameeyey anna warre hebel baan loo jeedaa baa waraabaha la gubya marre hebel baa ninkan waa shakhsi magaciisa war tuug maana la helayn hataa xaydawaana u dhali in la heli karo soo maaha abbaha kula dhashay adeerkaa kula dhashay wiilkaada adiga dadkao dhan maa isku mid ahayn mid khaa'in baa la heli karaa hadduu khaa'inka la yidhahdo waa khaa'ina naga qabto oo aad tidhaahdo waa ree hebela lama qaban kara ka warrama meeshii la rabay maskax inay ka hagaagto xamar aheed baa aragtaa wax ka socda hadda ma aragtaa hadalkayga wixii hore uga socdayna waa aragtaa waxoogaa indhaha yala kala furtay 4 beri oo furmaajo meeshu ay 4 tibi haddana indhaha isku xidhanaysaa may maqlaysaa war ilaahay barya anu aqoon goonina oo ma qabin saaxiib goonina lama ahayn laakiin waxaanu sidan wax loo wado umaan arkayay ee danta ummadda meesha ku taalla may maqlaysaa ka soo taga midda ayada hadda intaan iskuu soo noqonno waan ogahay caawa markii la gaaro waxaa la dhihi doonaa 100 meelood baa leeyahay war faarax baa soo socdaayay war lacag ha laga keena Djibouti war ha laga keena Soomaaliya war abil la gubka ha la gaaray baa la dhihi doonaa oo maxaa laga rabaa aan isweydiinay maxaa xaqa ugu tahay dinaa laga rabaa ninkaan la xisaabtamayo waa ninkii Kukiye iyo Jalwe iyo maxay ahayd Abaluya iyo Nandi iyo Kalenjin Soomaa maxaa midka xagga joogo inta uu soo ordi waxa weeyaan wax kasta aan gadno adigu aan qaad ka gado sunnaan ka gado anigana kalluun ma ka cuni maxaa waa nafaqa aan ku baabiyo adigana kaba qaad ii noqo كان زمان أنا راعي كان إسكاب وأنا الله صعبان هاي أنا قاعد كان ورهوية